Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelkeena iga baro channel. Maalmo badan ayaa kala maqneen. Insha Allah tacaala maanta waxaan soo gudbin doonaa 5 dal ee ugu weyn adduunka. Intaan u guda galin videoga, haddii aad videoga ka hesho like saar, haddii aadan subscribe u saarna subscribe saar. Kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta. Kaalinta shanaad waxaa soo galay dalka lagu magacaabo Brazil. Wadanka ugu ballaaran Koonfurta Ameerika wuxuu ku fadhiyaa bad gaaraya 8.51 milyan oo isku weerar. Brazil waa mid ka mid ah dalalka ugu waaweyn dunida dhankaas iyo badka. Kaalinta afraad waxaa soo galay dalka lagu magacaabo China. China waa mid ka mid ah dalalka ugu waaweyn dunida. Wuxuu badkiisa gaarayaa 9.6 milyan oo kiiloomitir oo isku weerar. Waa mid ka mid ah dalalka ugu waaweyn dunida, wuxuuna sidaas kusoo galay kaalinta afraad. Kaalinta saddexaad waxaa soo galay dalka lagu magacaabo USA ama u taqaantaan United States of America. Wuxuu badkiisa gaarayaa 9.63 milyan oo kiiloomitir oo isku weerar. Waa asigana mid ka mid ah dalalka ugu waaweyn dunida. Kaalinta labaad waxaa soo galay dalka lagu magacaabo Canada, mid ka mid ah dalalka ugu quruxda badan loona dalxiis tago si waliba Soomaalidu ay jecel yihiin. Wuxuu badkiisa gaarayaa 9.984 milyan oo kiiloomitir oo isku weerar. Kaalinta koowaad waxaa soo galay dalka lagu magacaabo Ruushka, mid ka mid ah dalalka ugu ballaaran dunida, wuxuuna badkiisa gaarayaa 17.1 milyan oo kiiloomitir oo isku weerar. Wuxuu sidaas darteed ku noqday wadanka ugu weyn dunida.